khadka telefoonka waxa hadda si toos ah ugu jira gudoomiyaha xisbiga wadaniga ee degmada Yufle guurtida gobolka Sanaag gudoomiye Ducaale Ismaaciil Bulle gudoomiye horeen ku soo dhawow waa ku dhawahay Cabdiraxmaan Biriit Shoodiyo bahda saantifina weydin salaamaya gudoomiye sideed u arkaysid isku shaandhayntii dhawaan ka dhacday dhawaan u sameeyay madaxweynaha Soomaaliland sidee kula muuqatay si fiican weeye su'aashaadi weydiisay wariye haddaan arrintaa ka hadlo madaxweynuhu maxamed dalkan u sarreeyay xaqna wuxuu leeyahay isku dhashaanada dastuurka qarankaas dastuurka Soomaaliland baa siiyay marka shaqo uu lahaa iyo xaquna lahaa buu fuliyay marka sunnaha dawladnimada xilkuna meerto noqdo si fiican aan u arkay sababtoo ah dalku xilka sunnaha dawladnimada in dadka la isku bedelo kuraasada la isku bedelo way markaas anigu haddaan ra'yigayga iyo dareenkayga cabad Ducaale ahaan xilku waa meerto maalinba nin bay dawladdu keeni doontaa sharcigeeda dastuurkana dhigaya waana kaynu madaxweynaha u dooranay intaasaan ka gudbaya takala waxaan raacinayaa halkan waxaan hambalyo uga dirayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo aan ku aqaano ama aan ku diirsado magacaabisiisii oo waayo nin samafale aan horu ahaa oo dalka wax badan gobolka Sanaag wax badan u qabtay haddana ka waday maantana xukuumaddu u magacawday dareenka aan iga guuxaya wuxuu yahay waxaan halkan hambalyo markaa uga dirayaa wasiir ku-xigeenka isagoo aanu ka filayno inuu dalkan iyo gobol ahaan iyo Soomaaliland ahaanba wax ku soo kordhin doono insha Allahu tacaala hambalyan markaa uga diraynaa waxaan leeyahay madaxweynahana waxaan leeyahay dalku ninba nin buu yaqaana anagu ninkaas hawl badan baan ka soo aragnay wax badan baan gobolka soo shaqeeyay marka cid kasta oo khusayinta waxay khusaysaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta halka hambalyo uga diray madaxweynaha aad baan uga mahadnaqayaa sida uu shaqada u gutay way marka shacabka reer Soomaaliland iyo wixii wax ku oola dalka waxa weeyaan lagu samro xilku waxa weeyaan waalmeerto maalinba nin baa qaban doona sababtoo ah waxaan u dooranay oo dalkan iyo duruusan u sameynay xilku waa meerto marka aad baan ugu hambalyeynaya madaxweynahana isku yeeshanayso watii la sugayay anigu wax haddii laba idankeeda leeyahay anigu dhaliilaan u arko waan ka sheego waxa weeyaan oo iga muuqata halkaas waliba raggaana uu magacaabeen arkaya rag wax ku oolo oo waayeel u badan bay ahaayeen marka aad baan ugu hambalyeynaya madaxweynaha hawsha ugu hambalyeynaya shacabka reer Soomaaliland gooliyo gobonimo rajeynaya insha Allahu tacaala dalkana waxa la xil bay naga wada saaran dhalinyaro waayeel rag iyo dumar mudaniyadoodii waliba mas'uuliyadda ha ilaaliyo wixii taban la sheego xukuumadda ku taban la sheego wixii taban la sheego anigu soo tago marka hawshaas inay madaxweynuhu fuliyay aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa siyaasi Ducaale Ismaaciil Bulle gudoomiyaha xisbiga wadaniga ee degmada Yufle gudoomiyaha